kusoo dhawaada barnaamij aan idinkaga diyaarinay mid ka mid ah telefishinada ka soo baxa dalkaasi Sweden ee ah barnaamij la yiraahdo Effector List oo hadba lagu soo qaato wiigaasi wixii dhibaatooyin ay ka dhaca wadanka. Mid ka mid ah stationada magaalada weyn ee Stockholm ayaa waxa ka dhacay in nin tuug ah uu weeraray mid ka mid ah shacabka reer Sweden. Ninka la weeraray ayaa waxa uu ahaa nin miirkiisu uunan joogin isla markaana uu ka faa'iideystay ninkan tuuga ah. När Johnny somnar på en bänk rotar mannen igenom hans fickor. Johnny blir irriterad på att sida uu jeedaa ninkan ayaa waxa uu ku dul wareeray isla markaana miirkiisu ka tagay uu ku dul dhacay wadada trainka uu maro halkaasi oo ninkii tuuga ahaana intuu soo dugtay isla markaana jidkii uu ku sii toosisay markaa trainka uu jeero och faller och slår i huvudet i spåren och blir medvetslös. Därefter ser man hur gärningsmannen booliska ayaa waxa ay sheegeen ninkan inay ku raad joogaan iskaan ilaa imika wax cadeemaha aynan helinay muujinaya balse ayagoo si waadax ah u haya sawirkiisa isla markaana kaamirooyinka ku yaala stationka ay wada qabteen asigoo soo dhaxmaray stationka gudihiisa isla markaana salaamay mid ka mid ah ilaaliyada trainka stationkiisa halka ka sii degtay horoosi gudbay. Booliska ayaa waxa ay ballan qaadeen in ay soo wici karaan asigoo imika ay ku tilmaameen qiyaastii 35 ilaa 40 sano jir dhererkiisana waxay ku qiyaaseen 1.70 ilaa 1.80 waxa uu sitay jaakad buluug ay waliba surwaal jeenisa. Haddaba cid allaalay cidii aqoonsata isla markaana ama tuhun uu soo galo si qarsoodi ah waxay u soo wici karaan ayagoo xataa qarin kara magacooda eber 87 eber 2 eber eber 98 booliska ay ku soo wargeli karaan. barnaamijkii gaarka ah inta ayaan ku soo gabagabeynayaa anigoo Maxamed Daawud Cumar Maxamiyuumbi ayaan ila socodsiinayay barnaamijka waxa soo saar ka ahaa Axmed Fidig inta dib u kulmi doono sida ayo nabadgelyo.